السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامج تاريخda qaybtiisa asalka dadka Soomaalida iyo xaaladihii ay soo mareen waxa idin soo jeedin doono Salmaan Abukar Cabdullaahi Salmaan Yaabsade iyo Diiwaan Cabdullaahi Xuseen iyo Abdullah kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka taariikhda qaybtiisa asalka dadka Soomaalida iyo xaaladihii ay soo mareen ka sheekeynta iyo soo bandhigida asalka dadka Soomaalida waxaa ka taagan dood taasi oo sababtay in dareen iyo rabitaan la siin waayo asalka iyo firka Soomaalida in la keeno dood ku saabsan firka Soomaalida waxaa keenay in la waayay kansi iyo dhab qoraal loo laabto oo la cuskado si gunta ay u noqoto qanacsanaan waxyaabaha ay keentay soonada dejisay muranka arintani ku saabsan waxaa ka mid ah in dadka maanta nooli ay danayn jiritaankooda waxa ay yihiin ciribkooda iyo in dadka qaarkii ay isku lagdaan Ethiopian ayaan nahay iyo Arab ayaan nahay haddaba iyada oo arintan ay tahay mid looga kala qaybsan yahay waxaan soo qaadan doonaa qaybta ugu dhow ee la dhigi karo aleelahe waa anaga dadkaasi oo waa ciribteena Soomaalida waa dad uu dhulkooda dhaco geeska qaaradda Afrika waxa ayna ku fadhiyaan dhul baaxeed dhan 1 milyan iyo jajab Soomaalidu waa dad madow oo diintoodu tahay Islaam waxa ayna deris leeyihiin Oromada Cafarta iyo qowmiyadaha kale Soomaalidu waxa ay ahaayeen dad madow oo aad u yaqaanay ganacsiga waxa ayna Masar iyo boqortooyooyin kala geeyin jireen luwaanta malmasha iyo walxo kale Soomaalidu waa dad dhaqda xoolaha qaybahooda kala duwan waana il dhaqaale oo ay ku tiirsan yihiin Soomaalida xoolaha ay dhaqdaan waxaa ka mid ah geela ariga iyo idaha oo la isku yiraahdo ishkin iyo lo'da Soomaalida waxa ay ahaayeen dad aad uga muuqday ganacsiga marka loo eego xagga diinta waxaa la sheegaa in dad ganacsato Carbeed ah ay imaan jireen dhulka Soomaalida iyagoo mariin iyo nagaashaba u imaan jiray maadaama uu ganacsiga u ahaa mariin dhulka Soomaalida waxaa la sheegaa imaanshihii dadkaasi Carbeed in ay dhashay Soomaalida in ay qaataan diinta Islaamka gabi ahaantooda ay muslim noqdaan taasoo muujinaysa in dadkaasi deganaa geeska bari ee Afrika ay ahaayeen hal qowmiyad oo isku talo iyo tiraab ah waxyaabaha kale ee la sheego in dadyogaasi Carbeed uga tageen Soomaalida ay ahayd curashadii magaca Soomaali ereyga Soomaal waxaa la sheegaa in imaanshihii dadka Carbeed kadib ay bilaabmeen soo dhaweynta iyo marti soorida waxaana la sheegay in qof ka mid ah dadkii loo soo martiyay uu ku yiri qowsaarkii saacad Soomaal Arabkii oo arinkaasi maqashayna ay dadkii ula baxeen Soomaali haddaba markii uu soo banaan-baxay ereygaasi afka Soomaali waxa uu ku noqday Soomaali waxaana la tilmaamaa in markii hore dhulka Soomaalida la dhihi jiray bunti balse soo martintii Carabta kadib uu isbedelay loona baxshay dhulka Soomaalida dhaqan ahaan Soomaalida waa dad ka duwan Carabta iyo Afrikaba marka la fiiriyo dhaqankooda bulshadeed waxa ay Carabta wadaagaan diinta Islaamka iyo raad xiriir ku dhisan waxaana taasi caddeyn kugu filan haddii Soomaalida ay tahay Carab maxay u qaadan waayeen dhaqanka Carabta maxayse u heli waayeen abtirsiimo Carbeed mise Carabnimada iyo diinta Islaamka ayaa la isdul saaraya taasina waxaad ka garanaysaa Pakistan Bangladesh iyo Rohingya oo ah dad Islaam ah balse aanan Carab ahayn sidoo kale
sidoo kale Soomaalidu waxa ay ka madax banaan yihiin marka darisnimada laga soo tago qowmiyadaha ku bahoobay Itoobiya, waxayna ka mid yihiin Hutu iyo Tutsi oo dega qaaradda Afrika. Haddaba darisnimada ma aha in ay abuureyso ka mid ahaansho iyo abtirsiimo. Sidoo kale waxa ay dad badani iyo dalka Itoobiya ku doodaan in ay Soomaalida xukumi jireen ayna dadkaasi iyo dhulkoodaba yihiin dhul Itoobiya ay leedahay, balse waxaa warcelin uga ah boqortooyadii madoobeyd ma ahayn boqortooyo ay Itoobiya leedahay ee waxa ay ahayd boqortooyo ay leeyihiin dadka madow. Haddaba Soomaalidu waa dad midab iyo dhulba ah, dad Afrikaan ah oo la mid ah dadyowga kale ee Muslimka ah degana qaaradda madow ee Afrika. haddaba Soomaalida ahaanshaheedii hal qowmiyad waxaa la aasay shirkii gumaystaha ee Berlin ee dhacay 1884. waxaa lagu qaybiyey dhulkii Soomaali weyn, halka uu dal waliba oo Yurub ahi ku taamayay dhulkaasi inuu maamulo, taasoo ay u arkayeen inay Afrika iyo marinkeedaba gacanta u galayso, waxaana uu dal waliba ilaalaysanayay dhulkaasi. Faransiiska waxa uu isku xaabiyey xeebta dheer ee Soomaaliyeed oo maanta loo yaqaano dalka Djibouti, isagoo ilaa iyo maanta aan ka dhammaanin arrimaha dhulkaasi. Ingiriiskana waxa uu isku fidiyey waqooyiga Soomaaliya, qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo galbeedka Soomaaliya. Ingiriiska waxa uu ku falceliyey kadib markii ay ururkii gobonnimo doonka ee SYL ay maxkamiyadda u dhiibteen dalka Talyaaniga inuu galbeedkana Itoobiya ku wareejiyo, halka qaybta koonfureedna ay u gacan galiyeen dalka Kenya. Taasina waxaa ka taagan muran dheer oo ah yaa bixiyey dhulka Soomaalida ee ku wareejiyey dalalka deriska ah, waana xaqiiq daahsoon oo u baahan in ay wax ka ogaadaan dadka Soomaalida. Waxaana ka afeefanayaa wixii qalad ahi ee arrintaasi ku jira in la caddeeyo oo dadka Soomaalida ay u dhabe galaan soo ogaanshaha arrintaasi. Soomaalidu waxay soo mareen nidaamyo boqortooyo aad u badanaa caan ahaa. Waxaa ka mid ah maamulkii hoos tagi jiray Cusmaaniyiinta iyo kuwa kale ay dhiseen dad isu tagay, balse ugu dambeyntii waxa ay u kaceen difaaca dhulkooda, waayo waxa ay ku soo baraarugeen shisheeyaha oo dhulkooda ku faafay. Waxa ay shisheeyuhu ku soo galeen dhulka Soomaalida ganacsi, wadaag iyo xiriiro kale, waxaana dhaqdhaqaaqyadii loo qaaday difaaca dhulka ka mid ahaa dhaqdhaqaaqii Axmed Gurey, Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyo SYL. dhaqdhaqaaqyadan waxa ay guntooda noqotay gobonnimo ay helaan labada gees oo ka mid ah dhulka Soomaalida, labada oo maamuli jiray Talyaani iyo English. halkaa haynoo joogo barnaamijkii maanta. Waxaan idinku wareejin doonaa Liibaan Cabdullaahi Xuseen iyo maansadii Soomaali weyn. kusoo dhawaada maansada Soomaali weyn qaybteedii labaad. Soomaali weynay gumaysiga salguurka soor idinma quudshe, waa idin sarsarayo qayb idin suray, idina maad susulino ujeedada u soofteen, sayleeciyo baraawiyo mayalaydi soo hadhay qarankii Soomaaliya saddexna ay ka maqan tahay madaxaad u saarteen. kulmiyihii sareeyana Hargeysaad surteeniyo hooyadii Soomaaliya, ma sahlana waxqabadkan howlgalkaad samayseen sareen weeye ummad yahay.